السلام عليكم maanta waxaan idin soo gudbinayaa film crime oo dil ah waxaana lagu magacaabaa 13 ka hor inta aynaan muuqaalka u guda galin like sar oo subscribe dheh si aad ula socoto muuqaaladeena xiga mahadsanid dhismo la isku dhaafsado lacag fara badan nal u samaysan sida kubadda oo kale hoostii Vincent oo qorigiisa wata waxa ay madaxa iska tooganayaan nin kale oo isna qori wata waana markii labaad oo ay qoriga isku qabanayaan Vincent waxa uu sugayaa waqtiga ugu haboon oo uu ninkani madaxa ka toogan lahaa isaga waxa uu soo xasuusanayaa intii jeer oo uu wareejiyay rasaasta bastoolada afar aroor oo la joogo oo haayo gudaheeda Vince hooyadii iyo walaashii waxa ay isku raaceen in ay iibiyaan gurigooda sida daraadeed waxa ay ku bixinayaan biilka iyo daawooyinka aabihii isaga in muddo ah ayuu hospitaalka ku jiray shil ku dhacay awgii Vince waxa uu booqdaa aabihii ka hor inta uusan shaqada aadin isaga waxa uu ka shaqeeyaa korontooyinka guryaha balse maanta waa maalinta Mr. Harrison kaasoo wadada dhinaceeda ka helay warqad la yaab leh sawiro ayaana laga qaadayaa isaga markii uu gabadha saaxiibtii u sheegayay waxa ku saabsan warqadda Vince oo halka joogay waxa uu maqlay isagoo oranaya waxa la ii keenay lacag fara badan waqti dambe maalinta Vince waxa uu soo laabtay guriga si uu ula dabaaldego dhalashada walaashiisa ugu yar waxa ayna rajaynayaan in sida ugu wanaagsan ay u dhigtaan dabaaldega isla waqtiga dhanka kale ee magaalada Jasper Bagis waxa uu la kulmayaa shakhsi hantiila ah waxa uu ka dalbanaya inuu deemiyo lacag gaaraysa 2 milyan oo dollar isagoona ka rajaynaya 3 milyan oo dollar inuu dib ugu soo celin doono 3 maalin gudahooda maalinta xigta markii Vince uu hospitaalka ku soo booqday aabihii dhakhtarka waxa uu isaga u sheegay in loo baahan yahay operation kale operationkaasina waxa laga yaabaa inuu sababi doono xaalad dhimasho ah shaqada kadib Vince oo dib u soo laaban raba waxa uu maqlay Mr. Harrison oo la hadlaya saaxiibkii waxa uuna saaxiibkii u sheegaya shaqo qaas ah kaasoo laga helaya lacag aad u fara badan kaliya maalin gudaheeda isaga shaqada ayuu ka shaqeyn jiray in badanna nasiibka ayaa saaciday balse hadda waa uu iska daayay kadib markii uu baxay saaxiibkii Mr. Harrison waxa uu u laabtay qolkiisa si uu halka ugu nasto balse si kadis ah isagu waa uu dhintay saacada yar kadib markii dambi baariyaashu ay su'aalo weydiiyeen Vince waxa loo ogolaaday inuu baxo balse ka hor inta uusan isagu bixin waxa uu baaray miiskii Mr. Harrison waxa uu ka bixiyay bashqadu waxa ku jirtay ticket lagu aadayo New York iyo sidoo kale waxa ku jirtay CBS waa uu qaatay isaga Vince waxa uu aaday xafiiska boostada markii su'aalo la weydiiyayna waxa uu warqada ku buuxiyay kaarka aqoonsigiisa waxa la soo siiyay baakad telefoon lacag furo waraaqad ku sawiran loogada caarcaarada iyo talaabooyin uu raacayo waxaana warqada ku qoran in lacagta uu ku aado hotel ku yaala New York waana in uu isticmaalaa telefoonka loo soo dhiibay oo kaliya inta kadib isagu waxa uu raacay talaabooyinka Mr. Harrison saaxiibtii waxa ay booliiska u sheegtay bashqadii la waayay kadib markii ay baareen xafiiska boostada ayagu waxay heleen in magaca Vince lagu qaaday package-kii Mr. Harrison ayaga macluumaadkii waxay u direen dambi baare Mulan kaasoo in muddo ah raadinayay bashqadan waxa uuna amar ku bixiyay inay raadiyaan Vince maalinta xigtay Vince waxa uu xirtay suudkiisii ugu fiicnaa waxa uuna raacay baskii u qaadi lahaa New York kama warhayo in la soo dabagalayo isaga waxa uu aaday caasimadii weyneed wuxuuna degay hotel waana sidii lagu amray waqti dambe habeenkii saqdhexe isaga waxa laga soo wacay telefoon cusub isagoo iska dhigaya Mr. Harrison Vince waxa la siinayaa talaabooyin kale oo cusub kaasoo uu raacayo maalmaha soo socda isaga waxa uu aadayaa meel u dhow boostada ku yaala hotelkiisa isagoo furaha isticmaalaya waxa uu furayaa sanduuqa BO waxa uu ka helayaa bashqad cusub oo ku jira ticket kale oo uu ku raacayo baska waxa la socda jab warqad oo ku qoran code 13 sidoo kale waxa warqada ku qoran isteebyo kale oo fara badan isaga ticketkiisa waxa uu ka socdaa akoonka waana in tareenka uu uga degtaa boostejada ugu horeysa markii dambe isagoo tareenka saaran Vince waxa uu ticketkiisa u dhiibay Kirchboga kadib waxa uu qoladii kale u sheegay Vince in tareenka halka loo joojiyo isaga maadaama uu soo baxay aroortii waqti hore waxa uu suurta gashay inuu ka baxsado qofkii soo dabagelayay talaabada xigta waa in gaari uu soo raacaa meel ka baxsan magaalada halka gaari kale ayaa imaaday kadib markii uu tagsigii baxay qofka gaariga kaxaynayo waa Jack waxa uuna Vince tusaya jab warqad oo ku qoran code 13 kadib Vince markii uu arkay Jack ayaa u wacaya waxa uu ka qaadayaa telefoonka kadibna waxa uu kaxaynayaa gaarigii Mulan iyo ciidamadiisa waa ay ka daw imanayaan balse ayagu aad ay u soo daaheen oo ayagu hadda ma garanayaan halka uu ka baxay Vince daqiiqada yar kadib Jack waxa uu Vince geenayaa teenda ku yaala dhaxbartamaha duurka laba nin kale ayaa Vince siinaya fanaanad si uu u xidho waxa ay baarayaan jaakadiisa ayagoo ka baaraya inuu wax ku soo qariyay iyo in kale iyaga waxa ay kabaha ka goynayaan ciribta dambe inta kadib
Vance waxaa loo soo kaxaynayaa goob kale. Waqti xaadirkan waxaa halka imanaya dad badan oo taajiriin ah. Halka Vance waxa uu kula kulmayaa ninka madaxda ah ee lagu magacaabo Joe. Waxa uuna u maleeyaa in uu yahay Harrison. Vance ayaa u sharxaya waxa uuna u sheegayaa in Harrison uu dhintay. Wuxuuna ku oranayaa anigu waxaan buuxinayaa booskiisa. Joe waa uu ku raacayaa inuu ciyaaro booska Mr. Harrison. Waa haddii uusan isaga wax dhib ah u arkayn. Isla waqtiga xagga hoose waxaa jooga kuwa badan. Dhammaantooda waa kuwa taajiriin ah. Waxayna haystaan lacago aad u fara badan. Jasper ayaa halka imanaya waxa uu dhiganayaa lacago aad u fara badan. Waxaana ku soo aadaya number 6. Joe isna waxa uu lacagta u dhigayaa Vance, kaasoo ah numberka 13aad. Waxa qof waliba u bilaabanaya tartanka ciyaarta Raashiyaanka. Vance waxa loo dhiibayaa qoriga. Waxaana ku waajib ah inuu wareega la galo ka soo qaybgalayaashii kale. Kuwaasi oo dhammaantooda xiran fanaanad madow oo nambaradooda ku qoran. Nin waliba waxa la siinayaa hal xabo oo rasaas ah. Kadib markii sharciyada ay raacaan, iyaga waxa ku waajib ah in qoriga ay ku qabtaan qofka ka horeeya, halka kuwa dambana ay gadaal ka soo tooganayaan. Kadib iyaga waxa ku waajib ah inay sugaan nalka sida kubadda oo kale u samaysan oo ku sawiran loogada caarada ilaa uu ka shidmo. Kaasi ayaana calaamad u ah inay istoogtaan. Qof waliba oo badbaada waxa uu soo galayay wareega dambe ee xiga. Vance gabi ahaanba aad ayuu nervous u noqday. Waxa uuna Jack ka dalbanayaa in bastoolada uu u habeeyo. Markii uu nalkii daarmay xoogaa niman ah ayaa dhintay, balse wareegii wali ma uusan dhammaan. Vance waxa uu show ka qaaday qoriga. Ilaaliyihii ayaa qori ku qabtay waxa uuna ku amray in bastoolada uu rido. Vance isaga xitaa waa la tooganaya haddii uusan sharciyada raacin. Vance isagoo cabsanaya oo gariiraya bastooladiisii ayuu riday, balse nasiib wanaag ninkii isaga ka horeeyay waa uu badbaaday. Kadib wareegii ugu horeeyay markii uu dhamaaday, Joe waxa uu si hoosaad ah ula hadlay Vance. Waxa uuna u sheegay inuu iska dhigo nin adag. Joe sidoo kale waxa uu bilaabay inuu la sheekaysto nin kale. Waxa uuna uga sheekeynayaa wax waliba. Dhanka kalena Vance waxa dejinaya Jack. Waxa uuna u sheegayaa inuu guuleysan doono. Waqti xaadirka Patrick Jefferson, kaasoo ah ka qaybgalayaasha number 17, waxa uu la hadlayaa ninka wakiilka ka ah ee Jimmy. Waxa uu u sheegayaa in marar badan uu ku guuleystay lacago badan. Jimmy ma uusan fahmin sababta Jefferson uu tartamo noocan ah uga soo qaybgalayo maadaama uu haysto lacago aad u fara badan. Sidaa daraadeed Jefferson waxa uu isaga u sheegay qisadiisa. Waxa uu ku jiri jiray xabsi ilaa hal habeen waxa ay ku soo xireen sanduuq si uu hawshan u fuliyo. Jefferson waxa uu sanduuqa ku jiray 2 habeen oo idil, balse Jimmy kuma dhaqaaqin arinkan, balse waxa uu ku yiri anigu kuma caabin karo. Jasper xitaa waxa uu sharad dheeraad ah la galay ka qaybgalayaashiisa, kuwaasi oo ku faraxsanaa walaalkiisa Ronald Lane Baggs. Ilaa dhawaan Ronald waxa uu ku jiray xarumaha dhimirka, balse Jasper ayaa soo waday si uu u ciyaaro ciyaartii uu isaga ciyaari lahaa. Wareegii labaad ayaa bilowday. Hadda qori waliba waxa la gelinayaa 2 xabo oo rasaas ah. Kala bar wareegii waa ay dhinteen. Vance isna waa uu ka badbaaday si nasiib wacan ay ku dheehan tahay. Ninkii ka dambeeyay xitaa ma helin waqti uu ku toogto. La yaab ayay la noqotay markii number 16 uu si kadis ah u soo kacay mar kale, balse markii dhakhtarka uu fiiriyay dhaawacyadiisa, waxa uu ku dhawaaqay in aanu sii wadi karin. Sidaa daraadeed ilaaliyihii ayaa isla markiiba toogtay. Ka qaybgalihii Hans oo ah number 11 maskaxda ayuu beelay. Marka ilaaliyihii Skalondorov ayaa isku dayay inuu ku dejiyo hadallo dhiirigelin ah, balse hadalladaasi waxba kama uusan saacidin. Jefferson mar kale ayuu la sheekaysanayaa Jimmy, isagoo u sheegaya waxyaabo badan oo noloshiisa hore uu soo maray. Waxa uu xabsi u galay bililiqaysiga gaari xamuul ah, balse ka hor inta aan la soo qaban, lacagtii waxa uu ku qariyay meel ammaan ah haddii Jefferson uu ku guul dareysto tartanka. Jefferson waxa uu Jimmy ka doonayaa in lacagta uu u raadiyo, isagoo isticmaalaya maabka uu u sawiray. Waxa uuna ku hayn doonaa jeebkiisa. Jimmy waxa uu qaadanayaa kala bar lacagta, halka barka kalena uu u dirayo Jefferson wiilkiisa, kaasoo isaga xitaa ku jira jeelka. Jimmy isna waxa uu aqbalayaa heshiiska. Inta uu aruurinayo sharadyo badan, Jasper waxa uu leeyahay dib u dhacyo isaga u gaar ah. Kadib markii uu walaalkii ka soo waday xarunta dhimirka ee lagu daaweynayay, Ronald waxa uu joojiyay qaadashada daawooyinkiisa, isagoo sheeganaya in hadda uu fiican yahay. Hadda si kastaba ha ahaatee isaga uma muuqdo qof caafimaad ahaan wanaagsan. Markii Jasper uu sawiray number si uu u tuso Ronald waa uu xanaaqay. Waxa uu numberkii madaxa uga dhuftay Vance. Jasper ayaa qabtay si uusan dagaal u galin. Wareegii saddexaad waxa uu bilowday isagoo qof waliba oo halka ka soo qayb galay uu ka muuqdo stress. Hans waxa la siiyay daawooyin si loo dejiyo, waxaana loo soo kaxaynayaa ciyaarta. Number 3na waxa la siiyay kursi si uu ciyaarta uga qayb galo. Ronald waxa uu ka careysiiyay Vance kadib markii uu iska kala tuuray. Isaga xitaa feer xun ayuu ku dhuftay, balse ilaaliyaashii ayaa kala celiyay kadib markii ay isdagaaleen.
wareegan qof waliba waxaa la siinayaa 3 rasaas waxayna u ciyaarayaan sidii caadada ahayd oo ay hore u soo ciyaareen ciyaarta kaliya waxaa ka noolaanaya oo ka badbaadaya 5 qof waxaa ka noolaanaya Vance, Jefferson, Ronald, number 3 iyo number 9 tani waxa ay la micno tahay in tartanka uu ku dhamaanayo wareegii ugu dambeeyay waxaana loo baahan yahay inay soo baxaan 2 qof 5 warqadood oo kukuusan ayaa la soo saaray miiska 2 waa madow 3 kalena waa cadaan 5 qof ee soo hartay mid walba waxa uu dooranayaa warqada 2 qof ee waraaqadaha madowga ay ku soo aadaan waxa ay noqonayaan 2 qof ee finalka isku baxaya halka 3 soo hartayna ay fasax u yihiin in ay baxaan Jasper iyo Joe waxa ku soo aadaya kuwa madow taasoo micnaheeda ay tahay Vance inuu u bixi doono Ronald Jasper waxa uu leeyahay khibrada ugu badan ee ciyaaraha sharadyada lagu helo balse Joe waxa uu isku dayayaa inuu qanciyo Schlondorf si uu ugu dhimriyo Vance sababtoo ah fursadda u soo hartay waa 5 ilaa iyo 1 si ay ugu guuleystaan lacago aad u fara badan Jimmy waxa uu Jefferson u sheegayaa in lacagtiisa uu soo qaaday ayna u harsan tahay oo kaliya in ay baxaan balse Jefferson markii uu dharka iska bixiyay oo uu doonayay inuu xirto dharkiisa caadiga ah Jimmy gadaal ayuu fiilo ka soo qaatay waxa uuna isku dayay in isaga uu dilo balse nasiib wanaag ilaaliyihii ayaa arkay intii aysan xaaladdu sii xumaan waxa uuna ku yiri maxaad halkan ka qabanaysaan waa adiga badbaadaye Jefferson waxa uu eedeeyay Jimmy waxa uuna jeebkiisa ka soo bixiyay jab warqad ah waxa uuna tusiyay in isaga ay ku soo aaday warqada madow Jimmy iyo waardiyihii waa ay baxeen ka hor inta uusan dharka iska bedelin Jefferson khiyaano ayuu sameeyay warqada madow waxay ahayd warqada uu maapka ku sawirnaa waana meesha uu lacagta ka soo qaadi lahaa Jimmy Jefferson waxa uu gubay warqadii ka hor inta uusan bixin wareegii u dambeeyay ka hor inta uusan bilaaban Ronald waxa uu ku qayliyay oo uu caayay Jasper waxa uuna ku oranayaa waqti xaadirkan lacagta waynu kala qaybsanaynaa wuu og yahay in Jasper uu lacagta ka soo qaaday waalidiintooda si loogu daaweeyo isaga Jasperna waxa uu lacagta u isticmaalayaa in ciyaarahan uu ku ciyaaro kaliya waxa uu xarunta uga soo saaray in lacagta uu ku guuleysto uusanna waxna ka siinin inta uu ku guuleystay hadda waxa la soo gaaray wareegii ugu dambeeyay ee ciyaarta oo ay ciyaarayaan 2 qof mid walibana waxa la siiyay 3 xabo oo rasaas ah Vance iyo Ronald waji ay isaga hor imaadeen waxa uuna midba midka kale ku aadiyay qorigiisa balse markii ay istoogteen midnama uusan dhicin waa wareeg nasiib badan wareegii kale rasaas dheeraad ah ayaa la geliyay waqtigan waxa dhintay Ronald Schlondorf waxa uu hambalyeynaya Joe oo ku guuleystay sida ciyaartan oo halista ah Jasperna waxa uu ka caroonayaa walaalkiisa oo ka geeriyooday sidoo kale Vance waa uu la dareemayaa xanuunka isagoo ka xunna waxa uu tuurayaa bastooladii qiimaha ugu dambeeya ee Vance uu helayo waa 1,850,000 oo dollar ninka lacagta siinayana waxa uu ku oranayaa waxa tahay qof nasiib badan maadaama ciyaarta ugu dambeysay aad ku guuleysatay Schlondorf iyo Joe way u hambalyeynayaan Vance waxayna ku oranayaan waxaan ku geynaynaa wadada laga raaco bosteejada tareenka Vance isna waxa uu iska dhigayaa mid ku raacay hadalkooda balse habeenkii markii uu isku dayo inuu soo dhunto waxa uu soo gelayaa qol ay ka buuxaan waraaqado dhiig ku halaysan waxa uuna bartilmaameedsanaya oo uu ka soo baxsanaya daaqada Jack waxa uu ogaaday in uu baxay balse Joe markii uu sheego waxba kama soo qaadayo hadii uu baxay Vance waxa uu subaxdii soo aadaya bosteejada tareenka waxa arkaya taksiilihii maalin ka hor gaarigiisa ku soo qaaday taasoo ka dhigan akhbaar xun taksiilihii waxa uu wacayaa booliiska isla markaa booliiskii ayaa yimid Vance waxa uu arkayaa gaarigii booliiska oo ka soo socda meel fog waxa uuna boorsadiisa lacagta ku jirtay ku qarinaya weelka qashinka ka hor inta aysan qaban daqiiqada yar kadib isaga waxa loo kaxaynayaa Mulan si uu waraysi uga qaado dambi baarihii waxa uu weydiinayaa waxa ku saabsan lacagtii balse Vance waxa uu iska dhigayaa inuusan waxba ka ogeyn waxa uu ka hadlayo been ayuu u sheegayaa waxa uuna u sharaxayaa inuusan ka qayb galin tartanka wuxuuna ku oranayaa waxay ogaadeen inaanan ahayn Harrison sidaa daraadeed duurka ayay i keeneen waxay rabeen inay i toogtaan balse anigu waan ka soo orday waxaana soo dhaxmaray buuraha si uu ugu cadeeyo Vance waxa uu kabihiisa tusayaa Mulan isagoo iska dhigaya in kabaha ay cirbaha ka go'een sidii uu u soo ordayay Mulan waxa uu ku oranayaa aqoonso wajiyadooda si aan u soo qabto ayaga Vance waxa uu ku oranayaa indhaha ay iga xireen waxayna igeeyeen duurka sidaa daraadeed ma garanayo wajiyadooda isagoon haynin cadeymo lagu xiro Mulan wax kale uma banaana isaga waxa uu iska soo fasaxayaa Vance kadib markii uu gaari kale u soo raaco stationka Vance waxa uu soo degdegayaa weelka qashinka waxa uuna arkayaa in boorsadiisu ay halka ka maqan tahay balse markii dambe waxa uu ogaanayaa in dhammaan qashinka lagu daadiyay dhinaca dambe ee dhismaha macnaheeduna waa in mar dhow qashinka halka lagu daadiyay Vance waxa uu bilaabayaa inuu daadiyo qashimada nasiib wanaag ugu dambeyn waxa uu helayaa lacagtiisa balse hadda isaga waxa uu ogaaday in mar kale uu qatar gali karo sidaa daraadeed
intii uu la safri lahaa boorsada waxa uu lacagihii oo idil dhigay boostada ugu dhow si uu qoyskiisa ugu diro. xoogaa yar kadib waxa uu wacay hooyadiisa si uu ugu sheego boorsada lacagaha ku jira ee uu boostada u soo dhigay. kadib waxa uu tareen ka raacay New York kadib markii uu hoteelka seexday habeenkii. Vince subaxii xigay waxa uu galay baqaarka ugu dhow si uu uga iibsado cuntooyinka fudfudud. halka waxa uu ku arkay bombal oo ay walaashiisa jeceshahay, sidaa daraadeed waa uu u soo iibiyay ayada. hadda waa waqtigii uu u laaban lahaa gurigiisa oo ku yaala Ohio. Vince waxa uu soo raacay tareenkii ugu dambeeyay. Jasper ayaana ka soo dabagalay isagoo ugu hanjabaya lacagihii uu soo qaatay. tareenka markii uu istaagay stationka ugu horeeya, Jasper waxa uu toogtay Vince. waxa uu ka qaatay boorsada waa uu nala soo cararay sababtoo ah culayska boorsada awgii. isaga waxa uu u maleynayay in lacaguhu ay boorsada ku jiraan. ka hor inta uusan dhiman, Vince waxa uu laqay warqadii uu boostada ka soo qaaday isagoo qoyskiisa ka fikiraya. filimkuna halka ayuu ku dhamaaday. ugu dambeyn, like saar oo subscribe dheh si aad ula socoto muuqaaladeena xiga. mahadsanid.